Waxaan fahamsanahay inaad raadinayso hagaha safarka adduunka, kaas oo ah codsi ballaaran oo xiiso leh. Si aad u abuurto shay run ahaantii waxtar ku leh, waxaan u baahanahay inaan soo koobo. Tusaha guud ee waddan kasta iyo gobol kasta wuxuu noqon lahaa maktabaddan. Si aan ku siiyo hagaha safarka oo runtii waxtar leh oo ku habboon danahaaga, fadlan ii sheeg. Waa maxay nooca safarka adduunka ee aad u malaynayso? Ma waxaad qorshaynaysaa safar adduunka oo dhan ah oo aad raadinaysaa talo guud oo ku saabsan safarka dheer, miisaaniyadaynta, fiisaha, ma xiisaynaysaa dhiirigelinta safarada mustaqbalka ee qaaradaha kala duwan ama noocyada meelaha loo aadayo, tusaale, magaalooyinka taariikhiga ah, yaababka dabiiciga ah, xeebaha qalaad? Ma laga yaabaa inaad isku daydo inaad go'aansato halka aad u socoto caalamiga ah oo aad rabto inaad sahamiso xulashooyinka ku salaysan shuruudaha qaarkood? Waa maxay danahaaga safarka koowaad? Tusaale ahaan, tacabur, dhexgalka dhaqameed, cunto, nasasho, nolol cawaysnimo, quruxda dabiiciga ah, safarka miisaaniyada, safarka raaxada, safarka qoyska. Ogaanshaha tan waxay iga caawinaysaa inaan soo jeediyo noocyada meelaha ku soo jiidan lahaa. Waa maxay qiyaastaada miisaaniyada ama qaabka safarka? Tusaale ahaan, boorsooyinka dhabarka, dhexda, raaxada, miisaaniyad gaar ah, maalintii toddobaadkii. Tani waxay muhiim u tahay talinta meelaha iyo hawlaha ku habboon. Intee in leeg ayaad qorshaynaysaa inaad safarto haddii ay khusayso? Tusaale, dhowr toddobaad, dhowr bilood, aan xad lahayn. Ma jiraan gobollo gaar ah ama noocyo khibrado ah oo aadan xiisaynaynin? Tusaale, ma doonayo inaan aado meel aad u qabow ama ma xiisaynayo meelaha xafladaha. Markaan helo fikrad wanaagsan waxa safarka adduunka kaaga dhigan yahay, waxaan bilaabi karaa dhisida hage aad diiradda u saaran oo faa'iido leh. Dhanka kale, halkan waxaa ah fikrado ballaaran oo sida caadiga ah lagu daboolay hagaha. Daawadayaasha qiimo lahow, subscribe, like iyo share dheha janaalkayga.